ardayga jaamiciga waxa saaran marka koowaad inuu identity-giisa sugo kiisa caqiideed kiisa fikradeed kiisa ummadeed kiisa afeed waayo waa inaad sumad iyo sawrac yeelataa bini aadamku wax isku jira waxna wuu isku darsadaa bini aadamku waxna waa u kala soocan yihiin sidaa awgeed maadaama aad timi goob dagaal haddaad goob dagaal adigoon qori sidan dee tagto waad jabaysaa saxiixa maaha goobaha fikrigu waa goob dagaal laakiin rasaasta ka dhacda waa aqoon ee maaha qori iyo muruqtoona maaha adoo madhan haddaad timaaddo markaa waan diintaada iyo dhaqankaaga iyo afkaagu sugnayn waad ambanaysaa waxaanad noqon doontaa markaa qul hal unabbi'ukum bilakhsariina acmaala aladiina dalla sacyuhum fi lxayaati addunya wahum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sunca ilaahay baa wuxuu leeyahy kuwa hoogay ma idinka warramaa shaqaday hayeen kuway baaba'day waa kuwo wixii ay shaqaynayeen uu lumitaan noqday iyaguna ismoodayay inay fiican yihiin iyagu waxay ismoodayeen inay fiican yihiinoo dee wuxuu ku wadaa inuu aqoonyahan noqdo oo dadka waxbuu u sheeganayaa laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan inaanu aqoonyahankii la rabay aanu ahayn dad aakhirada weyda dee wax walba weyda qul ina alkhaasiriina aladiina khasiruu anfusahum وأهلهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين إلهي وحولاي كوة خسارة وكوة نفي أهل بوايا ما لنت قيامة وارتاسوا ما خسارها وينبو الله تلمامة سبحانه وتعالى أيها الأحبة أغنت مركا ودناد وحي لي وحلا educational policy أغنت مركا لقيب قيبين يسيابا بدن بالله قيب قيبية mar academically baa loo qaybiyaa marna waxaa loo qaybiyaa viewga ama educational policy-ga dawladdu ay leedahay haddaynu aragtiyaha dawladda ku eegno aqoonta saddex qaybood bay u qaybiyaan saddexdaa qaybood waddan waliba qayb wuu qarsadaa cidna uma sheego waa mamnuuc qaybna sankaa la iska geliyaa oo waddan waliba free buu bixiyaa lacag buu ku daraa qaybna waa la kala iibsadaa qaybta koowaad waxay yidhahdaan waa alculuum asiyaadiya sovereignty waa aqoonta keenta dunida inaad hoggaamiso dowladaha dunida hoggaamiya aqoonta ay ku hoggaamiyaan aqoontaa la isma siiyo waa wixii ku saabsan culuum alfadaa cirka iyo waxaan loo dirayo waa wixii ku saabsan nuclearka iyo wixii la halmaala waa wixii ku saabsan culuumta hubka iyo wixii la halmaala waa wixii ku saabsan oo dhan aqoonta inuu waddan dunida hadheeyo oo ka xoog bato muruqa dawladnimo waxa soo saara taas laysma siiyo bale waxay yidhaahdaan basaasidda dunida ugu badan leh taasay ka dhacdaa basaasnimada hay-adkan intelligence-ku ay u samaysan yihiin dunida waxa ugu badane ay qabtaan waa inay technology xadaan weliba kuwa isxadaa waxay u badan yihiin kuwa saaxiibada ah yurub iyo maraykan baa isxadaya inta saaxiibada ah baa isxada saa awgeed aqoontaasi iyadu waxa weeyaan aqoon xoog lagu ilaaliyo oo dawlad wal iyo dal waliba uu ilaashado aanu cidna u ogolaanin laa tucta walaa tushtara lamana bixiyo lamana iibiyo waa laga yaabaa productkeeda in lagaa iibiyo laakiin iyada lama iibinayo dayuurad waa lagaa iibin karaa brogaraamada qaar laga nuqsaamiyey oo mar kasta aad iyaga ku xidhnaanayso u baahanaysid waa dunida say isticmaalaan dayuurada F-18 F-16 F-35 baa lagaa iibinayaa laakiin rasmi maaha brogaraamada rasmiga ay kuma jiraan waxaa la iibinayaa iyadoo maxay iyadoo nusa qolofta iyo duulimaadkii xooggan waa leedahay laakiin waxyaabaha qaarkood lama socdaan علومتا قيبتا اللبات waxay yidhaahdaan waa culumta cid waliba ay deeqsiga ku tahay waa culumta waddan waliba uu isku dayayo dunida inta kale inuu gaadhsiiyo waa aqoomaha ku saabsan alhuwiya wadaat
identity-ga iyo dadnimada u ummadda ay leedahay waa diinta waa afka waa dhaqanka waa thaqaafaadka iyo culture-ka waa taariikhda ummad waliba deeqsiin bay ku tahay sadaradeed safaaradahan dunida haddaad tagto safaarad kasta waxay leedahay xafiis culture-ka ku saabsan oo afkooda iyo ammaanta waddankooda iyo dhulka loo maxaa la yidhahaa tourismka lagu tagay konton brojiray ku sii siinaysaa haddaad safaaradda tagto oo ku saabsan un waddanka dhaqankiisa iyo hiddihiisa iyo afkiisa iyo wixiisa ku saabsan waddan waliba inuu kiisu faafaa buu jecel yahay markaa waddan waliba inuu kiisu faafo faransiisku inuu dunida oo dhan faransiis ka dhigaa buu jecel yahay luqada faransiis inay noqoto ta saytaraysa ingiriisku in luqada ingiriis saytaraysa buu jecel waddan waliba afkiisa iyo dhaqankiisa iyo hiddihiisa iyo taariikhdiisu rabaa dadka kale inuu baro inagu dhibtayna haysataa waxa weeyaan inaynu faafino keena daayo waynu ka faanaynaaba af ingiriisigana cilmaynu haysanaa af soomaaligana baadiyanimo socaga maaha yani afku waa waxa lagu qoro ee isagu kuma saabsiisana af waliba wuu noqon karaa mid cilmi sida wuxuu kaloo noqon karaa mid jahli sida